waxaan ku dhaaranayaa hawsha lagu dirayo inaad daacad ka noqonayso inaanad dugsiyada maamule iyo maamule ku-xigeen midna aanad ka ahayn inaanan dugsiyada dalka maamule iyo maamule ku-xigeen midnaba ka ahayn بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم المركب كوباد إلهي بقى محله إلها عافماتك إيو نبضها إندسيي ساعدها ربنا إنه كو أنبض بحلو بابورت امتحاناتك إيو بحيي قبل الله بري رنتي وحوي ومالين بشو أي تحي سديد أو 4 waxaan jecelahay in baxaan gobolada bari oo ka bilaabmaya Ceerigaabo Baran Sool Buuhoodle goboladaas oo dhammaan rabnaa in baxaan maanta insha Allah berritana inta hadhay gobolada ayaa bixi doona waxa halkan ila jooga gudoomiyihii waxbarashada ee gobolka Sanaag Mr Ahmed amase Baandheeyaba iyo supervisorskii imtixaanaadka qaadayay waxa kaliya halkan isku soo taagnay inaanu ugu bishaareyno ardaydii iyo waalidiintii iyaguna u soo duceeyeen Ilaahay inuu nabad qab ugu keeno imtixaanka waana u sii duceynaynaa inuu Ilaahay nabad ku geeyo nabadda ku soo celiyo waxa kaliya ku dardaarmaynaa baabuurta dirwaleentana waxaan ka codsanaynaa gobol walba aariyoogiisii baa jooga ilaa Ceerigaabo laga gaarayo waxa hogaaminaya baabuurta Ceerigaabada gudoomiyaha in marka talada isaga laga qaato baabuurtu ay istaba socdaan la iska war hayo la is ogaado mid kale mar hadii baabuurka sanduuqa imtixaanka la saaro baabuur macawis baa iga maqan iyo goob iga maqan iyo halkan baan ku wacanaya waxa la mid toon imtixaankii oo baxay baabuur ha ogaado supervisorka iyo dirawalkuba mar gaariga hadii sanduuqa imtixaanka la saaro meel aw tagi kara bataatanba hadaad soo adeeganayso ama lug baad ku soo adeeganaysaa ama dhaweeyaad ka haysanaysaa ama baabuur kale imtixaan saarnayn laakiin baabuurka mar hadii imtixaanka la saaro waa halka uu ka qaaday waxa ku xiga saldhigii Ceerigaabo hadii meel ka sokayso loo hooydana saldhiga jooga uun baa la dhigayaa marka waxa weey nin walba furahaaga ka taxadir jadwalkaaga eeg hawlahaaga wixii ma taqaanaa dabadeeto aad hadhow kolka soo noqonana wixii soo kordhay oo iska wareysan doonaa imikana Ilaahay nabadaaydi ku geeyo waxaan ku wareejin doonaa oo macallinkaygii Ahmed oo halkan joogo oo macallinkaygii ahaa gudoomiyaha bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam maanta way tahay bishii 8 casar liiq jawiga wanaagsan waxaanu halkan aanu ku anbabaxaynaa haddaanu nahay gobolka Sanaag gawaadhidii supervisoradii iyo gudoomiyaashii gobolada bariga gaar ahaan gobolka Sanaag si fiican oo wanaagsan ayaa xafiiska imtixaanaadku loo anbabixiyay wax walibana waa kaayay isugu hagaagsan yihiin waxaanu kala ku faraxsanahay wadada laamiga laga qabsado Hargeysa ilaa Ceergaabo waa laamigii baa taxan oo hadii alba ku rooyay wixii warwarkii iyadoo cirku iminka dhul badan roobku ka daayo daruuruhu dul joogan waxa weeye maanta warwarkii waa naga baay waayo laamigii ayaa Hargeysa ilaa iyo Ceergaabo isku xidhan Ilaah baynu ugu mahadnaqaynaa waxaanu Ilaahay kale ugu mahadnaqaynaa nabadgelyada iyo neecawda wanaagsan ee aynu ku jirro waxaanu imtixaankaasuna waxaan aanu sidno qof kasta darawal ha ahaado supervisor ha ahaado cid kasta oo bahda waxbarashada ha ahaado wax loo baahan yahay in taxadir leh oo aad iyo aad looga fiirsado oo ilaalin leh oo wanaag leh oo gobonnimo leh in la isaga saaro xil gaar ah oo aanu marna meel la beelaha ku noqon gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka gudoomiye Daawud waanu uga mahad celinaynaa nidaamka iyo systemka wanaagsan ee uu jeexay aad iyo aadna waa ugu faraxsanahay waxaan kaloo aad iyo aad u xusud mudan inaan halkan ka sheego kana cadeeyo waxa weeye waxa ku waajiba oo ku faraya dhammaan ardayda imtixaanaadka galaya inay kalsooni ku galaan niyad sami ku galaan oo aanay ninna qofna ku talagelin arday waaxid ku talagelin wax qish la yiraahdo waayo qish alqish xaraam qishka waxa weeye niyad sami iyo kalsooni in lagu galo oo aan hadhowto daaruhu inaga wada dumin oo hadii alba ku yiri dhakhtaradu inaga xumaan insha Allah ta'ala waayo
aqoontu iyadaa wax dhista iyadaa wax hagaajisa laakiin si haddii aqoontu ay daldaloolo leedahay waxa weeye dhakhtarkiina dhakhtar noqon maayo injineerkii guryaha dhisina injineer noqon maayo gudoomiye daawud baa wax badan idinkala hadlay dhammaan waxaan u hambalyaynayaa bahda waxbarashada gaar ahaan ardayda fasallada 8aad iyo fonforada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka gelaya bisha 11keeda waxaan leenahay hambalyo ilaahay idinku guuleeyo intaasaan ku soo gabagabeynaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.